waaku salaam saaxib. Haddii aad meeshan ku cusubtahay magacayga waxaa la yidhahdaa Shaakir Maxamed. Ma xusuusan tahay markii kuugu dambeysay oo aad barato wax kugu cusub? Dad fara badan oo fursad u helay inay qaataan shahaadad dugsi sare ama mid jaamacadeed waxaa laga yaabaa waxbarashada inay joojiyeen mar alaale markii ay shahaadada qaateen. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago fikrad la yidhaahdo waxbarasho abadi ah. Marka waa maxay waxbarasho abadi ah? Waxaa loola jeedaa qofku in uusan joojinin waxbarashada. Waxbarashadu kaliya maahan in jaamacad loo aado amaba koorso la iska diiwaan geliyo ama tababar la aado amaba iskuul laga baxmo ah. Wax kasta oo kugu hareeraysan wax ka baran kartaa. Meelaha aan ka helayno ama ilaha aan waxbarasho ama macluumaad ka helayno aad iyo aad ay u badan yihiin. Gaar ahaan maanta oo 2025 la marayo waqti kasta oo hore waa ka badan yihiin. Waxay u badan tahay hadda videogan inaad ka daawanaysid mobile ama TV smart ah oo internet lagu xiray ama computer. Marka maanta wax kasto hadda kugu soo dhaco su'aal kasto kugu soo dhacdo hadda internetka ka raadi kartaa, Google ku qoraysaa amaba applicationada kala duwan garaadka macmalka oo casriga ah weydiinaysaa. 20 sano ka hor waxaa laga yaabaa haddii aad u baahan tahay macluumaad guud inaad raadisid oo ku saabsan taariikh, juqraafi, saynis, diin inaad ku qasbaneed maktabadda inaad aadid oo meeshaas marka aad ka raadisid buugaag aad u kala duwan. haddii aad nasiib leedahay oo aad haysatid buugaagta la yiraahdo abwaan ama encyclopedia inaad ka raadisid oo af Carabi lagu yiraahdo mawsuuca oo iyaga laftooda qayb u samaysan amaba u samaysan maaragtay jus u samaysan oo marka laan kasto cilmi ah macluumaadka ka raadisid. Laakiin maanta waqtiga la joogo haddii tusaale ahaan caasimadaha Afrika mid kamid ah garaweyso mobilkaaga weydiinaysaa Google asaa kuu sheegaya. Waxaan ula jeedaa si aad u heshid macluumaad cusub ama aqoon cusub ama wax cusub aad u baratid maanta waxaa fursad u haysataa yani sidii hore si ka sahlan inaad wax u baratid. Waxbarasho abadi ah marka waxaa loola jeedaa waxbarashada inaadan joojinin, wax cusub inaad barato, macluumaad cusub, aqoon cusub, xirfad cusub, waxay doontaa ahaato, luqad ahaato, taariikh ahaato, saynis ahaato, diin ahaato, ha ahaadaan aqoon ama xirfad ama maado ama macluumaad la xiriiro xirfadda aad leedahay ama waxa aad ka shaqaysid oo kale. Maxay faa'iido leedahay marka waxbarashadaas abadiga ah? Dabcan faa'iidooyin fara badan ay leedahay. Waxaa kow ka ah inaad ka harin isbedelka degdeg u dhacay ee nolosha qaybihiisa kala duwan oo dhan ku saabsan. Haddii ay tahay aqoon, haddii ay tahay xirfad, haddii ay tahay isbedelka teknolojiyadda, habka wax loo barto, sida loo shaqeeyo, sida shaqooyinka loo qabto, xirfadaha kala duwan inaad dabcan ka harin. Nolosheenu waa nolol si joogta isku bedelayso. 20 sano ka hor hab nololeedka dadku maaragtay wax u xalli jireen ama noloshooda ay u wateen ama xiriirka bini'aadamka sida uu ahaa teknolojiyada la isticmaali jiray iyo maanta isku mid ma ahan. Waxaa arkaysaa teknolojiyad fara badan, qalab fara badan oo laga guuray oo aan la isticmaalin haddeersan oo laga yaabo 15 sano ka hor in la isticmaali jiray. Dhakhtarka tusaale ahaan 30 sano ka hor qalliin sameyn jiray qalabka uu isticmaali jiray iyo maanta ka soo qaado kala 91 qalliinkii indhaha lagu sameyn jiray ama uur ku jirta lagu sameyn jiray qalabka la isticmaali jiray maanta lama isticmaalo. Marka haddii aadan si joogta wax u baranin oo aadan la soconin isbedelka dhanka cilmiga, dhanka sayniska, aqoonta kala duwan, xirfadaha, fahanka, waxaas haddii aadan la soconin waxaa ka haraysaa shaqadii aad ku jirtay iyo xirfadii aad lahayd adduunka iyo meesha uu jihaysan yahay. Wacigaagana dabcan wuxuu noqonayaa waci iska hooseeyo noqonaa. Waxyaabaha kale oo laga faa'iidi karo waxbarashada joogtada ah ama waxbarashada abadiga waxaa ka mid ah bini'aadan aanay sanad kasta oo kugu kordho wuxuu ka go'an yahay caafimaadkaada. Marka meesha ugu muhiimsan ama xubinta ugu muhiimsan jirka bini'aadanka oo go'aamada lagu qaato fahanka ka mas'uulka ah waa maskaxda. Haddii aan si joogto ah maskaxda loo isticmaalin oo aan wax la barin oo aan maskaxda la mashquulinin waxaa soo degdegi karo gabowga maskaxda waa soo degdegi karaa. Daraasado cilmi oo aad iyo aad u badan ayaa jira oo tilmaamayo in waxbarashada joogtada ah oo abadiga ah ay wax weyn ka tarto caafimaadka maskaxda. Marka waxaa laga yaabaa adiga oo 50 jir ah in caafimaadka maskaxdaada uu eg yahay
qof 40 jir ah ama dhowr iyo 40 jir ah haddii aad si joog u isticmaashid oo aad ku fikirtid wax ku akhrisid wax ku baratid meelaha marka oo aad wax ka baran kartid aad iyo aad u fara badan yihiin buuga akhri kartaa maqaal akhri kartaa film daawo kartaa waa safri kartaa dad kala duwan la sheekaysan kartaa amaba meeshii aad dareemaysid in nusqaankaaga jirto oo ku saabsan xirfadaada amaba laanta cilmiga aad baratay ama xitaa aqoonta adiga aad isleedahay waa kaa maqan tahay ayaa si gaar ah u baran kartaa waxaa jiraan koorsooyin online ah oo aad qaadan kartid waxaa jiro tababaro kooban oo aad qaadan kartid waxaa jiro iskuulaad casharo gaar ah ama tababaro gaar ah bixiyo waxa markaas adigu u baahan tahay koorso cusub iyo jaamacad cusub iska qori kartaa haddaa u baahan tahay adeeg ku jirtaa yani sidaa wax u baranaysid dabcan go-aankeeda adaa iska leh laakiin fikradda waxaa waaye inaad si joogto wax u baratid marka laga yimaado koorsooyinka online-ka ah ama tababarada amaba maaragtay qofku inuu jaamacad iska qoro ama tababar aado ama aqoon isweydaarsi uu ka qayb galo qodob kaloo muhiim ah ayaa jira marka aan ka hadlayno waxbarashada abadiga waa in qofku uu kaligiis wax isbari karo waxay ku xiran tahay kaliya dadaalka naftaada aad gelisid sida aad jeceshahay inaad wax u akhrisid sida ay kaaga go-an tahay inaad wax u dhageysatid ama wax u daawatid waxaan kasoo sheekeynay maanta macluumaadka aad heli kartid in meel kasto inay daadsan yihiin oo internetka aad ka heli kartid buugaag aad ka heli kartid maqaalo aad ka heli kartid cilmi baarisyo youtube-ka ama facebook oo laga yaabo hadda inaad iga daawanaysid amaba applicationada lamidka ah intaas oo waxaa ku jira buugaag intaas waxaa ku jira macluumaad intaas waxaa ku jira koorsooyin intaas waxaa ku jira muxaadarooyin kala duwan ah kaliya waxaa kaa xigta adig inaad go-aan qaadatid jadwal samaysatid naftaada ay kasoo go-do buug iyo qalin aad soo qaadatid oo meeshaasi aad ku qoratid aqoontii aad markaas raadinaysay si tartiibaha wixii u baratid balanteena marka waxaa waaye in aan si joogto ah wax u barano inaan u fahanno waxbarashadu inaysan dhammaanaynin inaan u fahanno in siyaabaha maanta aad macluumaad ama aqoon ama xirfad aad ku kasban kartid ay ka sahlan tahay mar kasta oo hore ama waqti kasta oo soo dhaaf waxaan rajeynayaa in taladani ay ku anfacday haddii aad tahay qof hore u samey jiray ay dhiirigelin kuu noqoto haddii hadda aad ku baraarugtayna aad tallaabada qaadi doontid oo aad hadda iyo wixii ka dambeeyo u dalba doontid inaad wax cusub baratid inaad xirfad kaa maqan baratid ama mid aad taqaanay inaad sii horumarisid waxaan rajeynayaa inaad programka ka heshay haddii aad ka heshay dabcan waxaan kaa codsanaya inaad saaxiibada la sii wadaagtid kanaalkana aad rukumatid aad iyo aad u mahadsan tahay nabadee